warar cusub ayaa soo dhacay. waxaa aada isha caalamka oo dhan ay hadda lagu eegayaa heshiis qabyo ah oo aan weli la saxiixin oo Mareykanka iyo Iiraan ay markaa isla meel dhigeen oo ay dhexdhexaadiyaashu ka shaqeeyeen. heshiiskaas caqabado badan oo leh. caqabada ugu horeysa waa Netanyahu iyo kooxdiisa oo Trump ku qasbaya in heshiiskan uusan saxiixin ama arrinta nuclear-ka meel laga saaro Iiraan. Iiraanna waxay marka hore heshiisku ahaa in nuclear-ka arrintiisa dib loo dhigo oo waxa kan kale laga heshiiyo. laakiin hadda culeysyada way badan yihiin. ninkii Trump ahaa waxaa laga rabay heshiiska inuu maanta saxiixo. talo ma saxiixi doonaa mise ma saxiixi doono? caqabadaha durbaba soo baxaya. haddaba warbaahinta Iiraan ayaynu marka hore ku hormaraynaa oo heshiiskan ka hadlaysa. haddaba sida Al Jazeera ay qorayso waxaa la leeyahay wakaaladda wararka u faafisa dalka Iiraan ee la yiraahdo Tasnim ayaa saakay waxay sheegtay in kastoo ay jiraan sida ay tiri tilmaamo muujinaya isfaham horudhaca oo dhex mara Iiraan iyo Mareykanka, haddana Tahraan waxa ay sidoo kale diyaar u tahay suurtagalnimada in wada hadalladu ay fashilmaan. wakaaladda wararka ee Tasnim oo soo xiganaysa ilo xogogaala ayaa sheegaya in khilaaf uu weli ka dhex jiro Iiraan iyo Mareykanka kaasoo ku saabsan hal ama laba qodob oo ku jira heshiiska qabyada ah, iyadoo xustay in arrinta ay weli la xallin sababo la xiriira caqabadaha Mareykanka. ila wareed ayaa sheegaya in Iiraan ay sheeganayso xuquuq iyadu ay leedahay oo dadkeedu leeyihiin, waxayna ku wargelisay dhexdhexaadiyayaasha Pakistan in haddii caqabadaha Mareykanku ay sii socdaan heshiiska ma dambaysa uusan suurtagal ahayn. wakaaladda wararka ee Tasnim ee dalka Iiraan waxay sidoo kale xaqiijisay in Iiraan aysan doonayn inay ka saarto agabkeeda nuclear-ka ama ay joojiso kobcinteeda uranium-ka 10 sano ama ilaa 20 sano sida Mareykanku ay doonayaan. waxay intaa ku dareen Iiraaniyiintu in ciidamadooda qalabka sida ay si buuxda u diyaarsan yihiin oo ay ku tixgelinayaan oo ay wax weyn ka ogaadeen waayo aragnimadooda dagaaladii la soo dhaafay, in falalka cadawtinimada ay Washington ay mar walba la maleegayso Iiraan ay markaa iyo Israa'iil labadaba ay ciidankoodu diyaar u yihiin inay iska difaacaan. marka meesha waxaa nooga muuqanaya markaan eegno wixii shalay sheekadu halkay noo joogtay in heshiisku isku soo dhawaaday. madaxdii Carabta iyo nimankii Trump iyo ay wada hadleen, madaxdii Turkiga iyo Pakistan iyo wixii dhan la wada hadlay in arrinta nuclear-ka laga saaro. arrinta nuclear-ka in loo ballamay marka hore in arrimahan la xalliyo, Hormuz la furo, Mareykanku meesha ka baxo, beegsiga madaxda Iiraan iyo gacadmada iyo waxa kan laga daayo. arrimahaasaa marka hore la isla meel dhigay. Iiraan waa midda ay doonaysa in laga hadlo. hadda marka waxaa muuqata inay Mareykanku Israa'iil iyadoo ay riixayso ay ku soo darayso arrinta nuclear-ka iyo uranium. waxay leeyihiin uranium-ka waddankiina ka saara, waa idinka shakisanaa inaa hub samaysanaysaa nuclear. haye nuclear-kiinana inaa shaqadiisa totaliba aad joojisaan 10 sano ilaa 20 sano meelahaas inaad joojisaan, wax shaqa aydaan ka qabanin oo mid nabadgelya xataa aydaan samaynin. marka Iiraan waxay leedahay annagu tan kuma ballamin. heshiisku wuxuu ahaa arrintan inaan dib u dhigano, hadda hawshan ka wada hadalno. Mareykanku marka qodobadan ayuu soo dhex dhigay meesha. marka waxay yidhaahdeen annagu hawsha diyaar uma nihin waxa kan in la isku dhex furo. marka aan idin tuso marka Bakistaaniyiintii iyagu marka arrinta dhexdhexaadinayay. haddaba waxaa leeyahay Pakistan waxay rajo ka qabtaa inay mar kale martigeliso wada hadallo dhex mara Mareykanka iyo Iiraan. ra'iisul wasaaraha Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif ayaa sheegay inay rajo ka qabaan martigelinta wareeg cusub oo wada hadalla oo dhex mara Mareykanka iyo Iiraan. waxaana uu sheegay in Islamabad ay sii wadi doonto dadaaladeeda dhinaca nabadgelyada ah
iyadoo markaa ku salaynaysa daacadnimo dhinacyaduna ay si daacada ugu kala dab qaadayso oo arrinkaa ay qabanayso. marka Bakistan dadaalkeeda way wadaa heshiiskan. marka Mareykanka xaggiisa Trump inuu soo dhaweeyo wuu sheegay, laakiin hadda waxbaa ku jira arrinta nuclear-kan Iran banaanka ka geynaysa. Trump waa soo gelinaya kooxdiis Israa'iil ku qasbays, marka waa la soo gelinaya. marka sheekadii marka heshiiskii wali marka waxa leeyahay waa la isku mari laayahay sida ay wax noqon doonaanna marka lama yaqaano. haddaba marka waxaan u gudbaynaa dhanka Israa'iil, waxaanu ku bilaabaynaa warbaahintoodu waxa ay heshiiskan ka qoreen saaka. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, kanaalka 12 ee Israa'iil ay leedahay ayaa sheegay saacadaha soo socda in ay tahay saacado muhiim ah. faahfaahinta soo ifbaxaysa ee ku saabsan heshiiska Iran iyo Mareykanka ayaa waxay sheegay kanaalku inuu u muuqdo in markaa ay heshiis ay halkaa ka gaari doonaan. haddaba janalka kale ee wargeyska la yiraahdo Yadacood Axranood ayaa isaguna walaac ka muujiyay si kordhitaanka ay sii kordhayaan in Israa'iil isfahamkan soo ifbaxaya ee Mareykanka Iran iyadoo aanay shaqo ku lahayn, waxaana laga baqayaa in heshiis uusan qeexayn oo Israa'iil wixii ay rabtay aan lagu faahfaahinayn, kaasoo ku saabsan burburinta barnaamijka nuclear-ka Iran oo markaa iyo arrinta gantaalada Iran in markaa heshiiskaa la gaaro, taasoo Israa'iil dhabar jab weyn ku noqon doonta. dhanka kale wargeyska kale la yiraahdo Macaariif ayaa wuxuu tilmaamay isaguna ciwaan uga dhigay guul ayaa Iran u soo dhow, Israa'iilna waa inay dib u qiimayso booska ay ka joogto gobolka oo ay samaysato xulafo cusub. warbaahinta kale ee Israa'iil ayaa waxay dhaleecaynayaan aamusnaanta buuxda ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil, kaasoo ay sheegeen in markaa uu aamusan yahay saaxadii wadahadalka iyo in lala tashadana meesha ay ka baxayso. ma ujeedaa warbaahintii waxay weerar ku qaadayaan Netanyahu iyo dowladiisa. waxay leeyihiin Israa'iil Iran way guulaysanaysaa, Netanyahu iyo kooxdiisana waa laga adkaanayaa, sababtoo ah Mareykanka waxa uu qarka u saarayaa inuu saxeexo heshiis Iran nabadgelyo ay ku helayso iyadoo weliba haysata nuclear-keedii iyo gantaalaheedii. marka maxaan ka dagaalanay leeyihiin nimanka Yahuudda waxay leeyihiin war maxaan ka dagaalanay, marka dagaalkeenu muxuu ahaa? nimanka wuxuudi iyagoo haysto Trump faraha ka qaadaya, annaguna Trump hadduu faraha ka qaado ma aadi karno, haddaan aadno ma iska celi karnaa? ma iska celi karno. wararkii marka Yahuudda ku jirnaa ninkii Netanyahu xaalkiisa heshiiskan hadduu hirgalo waxa ku dhici doona. haddaba kanaalka la yiraahdo 14 ee telefishinka Israa'iil laga leeyahay wuxuu sheegay Netanyahu inuu ka mamnuucay wasiiradiisa inay wax wada hadal ka bixiyaan heshiiska qarka loo saaran yahay ee Mareykanka iyo Iran. wuxuu leeyahay heshiiskaas cid wasiiradayda ka mid ah ka hadli karta male, nin walba afkiisa xirto. sheekadaas marka way socotaa. dhanka kale isla wararka ka imanaya Israa'iil waxay leeyihiin hay-adda wararka u faafisa Israa'iil Netanyahu wuxuu qaban doonaa kulan golihiisa wasiirada kooban galabta ay iskugu iman doonaan. marka kulankaasa galabtaasna dhici doona. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadka cusub ee soo kordhay. haddaba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay qortay goor dhoweyd in Netanyahu uu u sheegay Trump Israa'iil inay xaq u leedahay waxa uu ku tilmaamay xurriyatul xaraka, xurriyadda dhaqdhaqaaqa. xurriyadda dhaqdhaqaaqa maxaa laga wadaa? xisbullaan garaacaynaa, gazaan garaacaynaa, suuriyaan garaacaynaa, waa baxaynaa yamanaan garaacaynaa, meel alla meeshaan rabnaa samaynaynaa. waa ninkan wuxuu rabaa dee waxaan heshiiskan iyo waxaan u diiday. heshiiska marka waxaa qaybka Iran ay wadato in kullul jabahaad dagaalka uu ka joogsado macal xisbullah inaan la weerarin.
marka sheekada marka nimankanu waxbay marka maleegayaan nimankan yahuudda niman caadiya ma halkaana ka mareen luuqaasay kaaga soo baxayaan marka ninkan marka waxaa leeyahay war adiga iiraantaadii waxaagii adeeg ku taala laakiin annagu waxaan rabnaa inaad nala ogaatid waxaan waxba laga qaban karin xurriyatul xaraka la yidhahdaa dhaqdhaqaaqa xurriyadda meeshaan rabnaa garaacayna ninkii trama waayaabay inta iiraana uga dhegan oo mintidiina inta netanyahu uga dhegan odagii marka maanta waraa laga sugaale maanta maalinta waraa laga sugayaa oo la leeyahay heshiiskan ma aqbashay mise ma aqbalin